السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا ميل والبود قد داونيسان يسوي البود إمبارليسان به. مقال كان ما أنت توحين كوفيرين دونا. dadka Soomaalida ah ee la doonayay in laga soo tarxiilo dalka Jarmalka ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saxiixay maalintii shalay ahayd. Qorshaha noocaaya muxuu yahay goormuu soo bilowday iyo xog aruurin aan ku sameeyay mashruucaasi iyo waxa lagu bedeshay ayaynu si gooni ah ayaynu u fiirin doonaa. soo dhawaada meel walba joogtaan isagoo markaa aad maqlaysaanba mudooyinkii ugu dambeeyay dowladda Jarmalka waxay doonaysay in dadka Soomaalida ah ee degan dalka Jarmalka aan sharci haysan ee loo diiday sharciga iyo kuwa dambiyada galay iyo kuwa kale oo tiro badan in markaa la celiyo mashruucaasuna waa mashruuc ay muddo badan ee ku tahaysay dowladda Jarmalka laakiin finally maalintii shalay ahayd ayaa loo ogolaaday in dowladda Soomaaliya ay iyadoo tiraahdo hada loo soo celiyo. Maybe we already started that process, and the Somali government has already approached the German government and give the positive response for that, receiving our people back home, and some of them are already, the process is also already going on, and we hope it will smoothly end up sometime soon. Inta badan markii laga hadlayo dadka in la celiyaa dadka xoog lagu ma celin karayo waxa jira sharci dhanka European Unionka iyo qaramada midoobay ee markaasi ka hor imaanaya in qofka immigrantiga ah xoog lagu celiyo lama ogola sida daraadid maadaama aan la ogolayn xoog lagu celiyo marka waa in la helo xeelad kale oo aan xoog ahayn oo sharciga xoogada looga dhunto isla markaasna dadkii Soomaalida la celiyo waan halka ay ka timaadeen marka in Jarmalku uu isku dayo in dowladda Soomaaliya ay iyadu ogolaato inay saxiixdo inay tiraahdo dadka hadda loo soo celiyo oo Jarmalku marka uu sida uu ku celiyo uu yiraahdo xukuuman celin dowladoodii baa doonaysa oo naga codsatay inaan celino inta ku jiray xog aruurinta ayaa waxaan ogaaday in 2015kii hay'ad Jarmal ah oo markaasi ka shaqeysa dadka la celiyay oo gudaha Soomaaliya la geeyay ama la geyn doono inay taakulayso ay dowladda federaalka ee Jarmalka ay siisay lacag ilaa 5 milyan ah oo marka loogu talagalay dadka Soomaalida la celiyo xagga markay tagaan wax loogu qabto loogu talagalay saad ka arkaysaan sawirkaani waxa fududeynaya safaaradda Jarmalka ay ku leedahay magaalada Nairobi isla markaasna waxa halka lagu sheegaya in dowladda Jarmalku lacag 5 milyan ay siinayso isla hay'ad ayagu ay leeyihiin oo fududeyn doonta ama facilitate gareyn doonta dadka la celin doono marka ilaa 2014kii bay soo bilaabatay inay Jarmalku tiraahdo dadka hal celiyo waxaan kaloo arkay in 2018kii dowladda Jarmalka ay joojisay kaalmo ciidanka Soomaaliya ay siin jirtay oo dhaqaale ahaa waxaan kaloo ogaaday oo xogan ugu kalsoon yahay aan ku ogaaday in maxaa la yiraahdaa dowladda Jarmalka sababta u joojisay ay Soomaaliya ku doonaysay inay ku cadaadiso in Soomaaliya ogolaato dadka la soo celiyo markay Soomaaliya ka yiraahdo jiidan ogolaan waayeen ay kaalmada joojiyeen inta uu Xasan Sheekh Maxamuud hadda xilka uu joogay dhowr jeer oo kala duwan ayaan ogaaday in dowladda Jarmalka ka codsaday dowladda Soomaaliya in heshiiska ay saxiixdo isla markaas la celiyo dad Soomaaliya oo Jarmalka jooga balse ay Soomaaliya ka yara lixleexanaysay finally maalintii shalay ahayd markii la saxiixay heshiiskaasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in dadka Soomaalida la celin doono asagoo afkiisa ka sheegaya in dadka loo baahan yahay oo aan la aqoon halka la geyn doono isla markii waxay dowladda Jarmalka ay soo saartay qoraal ay ku sheegayso inay aad u support gareyn doonto ay kor u qaadi doonto taakulada ay dowladda Soomaaliya ay siin doonto marka mid isku xiran hada taakulada doonaysaan ogolaada in